dekada magaalada Boosaaso oo ah halka ay dadkani si toos ah uga soo degaan ayaa waxa ay dekada Mukulla ee dalka Yemen ay ka soo raacaan doonyaha xamuulka ee isaga goosha dekadaha Boosaaso iyo Mukulla. colaadaha ka aloosan dalka Yemen ee ay dadkani ka soo carareen waxa jira caqabado kale kuwaas oo ay ka mid yihiin in caruurtooda lagu khasbo inay ka mid noqdaan askarta ka dagaalamaysa dalka Yemen haddii ay diidaanna xabsiga loo taxaabo. Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada jabhadda Xuutiyiinta kala kulmay xabsi iyo jirdil. raac khori qaado anuna waa ka diiday halda inta fadhiye dad Soomaali dhalinyar Soomaali waa jireen khori loo dhiibay dagaal galeen soo dhimteen meeshood lagu dhaafle malalkeen. maamulaha xirada qaabilaadda qaxootiga ee magaalada Boosaaso Cumar Cismaan Siciid ayaa sheegay in muddadii uu socday dagaalka dalka Yemen ay qaabileen dad ku dhow 40,000 isla markaasna ay wili socoto gurmadka loo fidinayo dadkan. si wada jir ayaa halkan loogu xanaanayaa qaxootiga saddex qaybood baa markaa loo kala saaraa qayb ka midii waxay degaan Boosaaso oo Yemeniyiinta iyo Soomaalida iyo Itoobiyaanka Boosaaso ay degaan. Soomaalida qayb ka mid ah ayaa waxaan u safrnaa gobolada dhexe ee Soomaaliya. sidaad la socotaan Yemeniyiin badan oo aad ku aragteen wadanka waxa la sameeyay hay'adaha iyo wasaaradda waxay ka kaashadeen dadka in integration loo sameeyo oo dadkii bulshada la dhex geliyo oo santara kan oo kale 7 casha loogu talagalay inay joogaan marmar waa dhacdaa duruufo inay sababaan inay ka bataan oo ay joogaan laakiin sida sharciga 7 casha loogu talagalay. Faadime Yaasin Jaamac VOA Boosaaso.